marka isticmaalaan sidii waxa u dhaqmaan dad oo qof maskaxdiis maqan tahay camal waxaad arkaysaa sida la sheegay qof gurigiisa ka soo toosay oo guri kala seexday qof ilmihiisii weydiinaya oo maxay ahayd yaa dhalay ilmahan xagee ka keentay waa dhibaatooyinka ugu sahlan uu leeyahay waxaa jiro dad markay marqaamaan ilaa qofka maandooriyo waa jaadka marka heer wuxuu gaaraa caaga saliidda inuu la galo musqusha oo u malayo biyo dhaqanka kuma wanaagsana islaamka dhaqanka maarta Soomaaliya kuma wanaagsana baalkaas qaadka la yiraahdo dhibaatooyin fara badan bulshada u leeyahay rafaad iyo silac iyo ku taklifan dhaqaale iyo waxyaalo badan uu sameeynaayo marka waxay ka hor imaanaysaa familkii dhisnaa maxay ahayto baraarihiisa iyo yani barwaaqadiisa ninka markuu jaadka cunaayo hadduu maanta lacagta qaadka u gambiso waxaa laga yaabaa qutul daruuriga oo qoyskiisa sii lahaa inuu qaad siiyo anagoo xataa xaaskayga ilmahayga ku dhex jiro waxaan arkaya xataa ilmihii biilkooda xataa inaan qaad la fadhiisto oo canaha ilmahayga wareer iyo xaafad in qada looga soo qaado ama ciidaha loo tuugsado heerkaasay gaareen jaadka ayaa iskale boorbalankaas oo dhan aniga hadda ka hor qasa ay qasbatay anoo qayilaya waxaan arkay gooskay inaan laqaynaa tufo ma sheegi karin ilaa hadda waa iga jabay dhalinyaro waxaa arkaysaa oo waali magaalada la marayo dadka waxay maleeyaan ilaahay xag oo min allaahka asaas waalay baalkana jaadka waalay aniga hadda ka hor waxaan gaaray jaadka anoo qayilaya oo jaad inaan ka imaaday oo xaafadayda gaf markaan 3 loota markaan dhaafaa waxaan ogaaday inaan xaafadda soo dhaafo dib ugu soo laabto markii xaafad waa la sheegay rag qaar ragnimada inay hoos u dhigayso qaadka la cunaayo intii aan qaadka cunayo bas aan habiyaa markii aan habeenka saacado subaxii xataa waxaan ku quraacdaa weynaya heer waxaan gaaray xataa in dadka aan tuugsado aan wax isiiyo marka Allah ka soo hadeeyaan leeyahay waxaan arkaa aniga cunugteeda hal joog la ku taagan bis maalinka dambe habeenka kala qaylaan fahmay waxaan ari cunugaada hal joog ku taagan yahay adina maalintan $5 beer jaadku ku aaday taasa ugu sahlan laga yaabaa maalinta $30 inaan gubo qaad ku cuno gabar khatar oo anoo xaas qaba naaka la u yeerto ila qiisho la tunto la seexdo ilmeyga iloobo cashadooda iloobo qaacdooda iloobo sabax markaan guriga taga ama leela dagaalamo la soo bariyo siba jaadku waa maandooriye khatara waayo qofku markuu cunayo wuxuu dareemaya mataqaanaa fudeed foorta aad u badan waxaan ka maqlay nin oo qayiilayay oo markii marqaamay oo marqaanka oo aad u saagay markii dambe inuu isticmaalay tarmuuska oo isaga ka qayiilayay inuu u qaatay sidii 3 biyo ku jiro amal musqusha la galay oo suulo la galay oo ku qubaystay oo waliba oo dhaawac xoog la gaarsiiyay markaan marqaansan tahay Mareykanka joogtaa markaa tuftinada xamara joogtaa aniga waxaan arkay nin oo xamaali oo bakaara joogo oo gaar gacan riixa baalkii naqaska inta soo dhigay asoo waxa loo tagay oo afka cagaar ka soo baxay oo baalka dhuunta ka qabtay asaa dilay baalka jaadka dilay nin baa intuu mala murqaamay wuxuu yiri waxaan sameeyay goortaan murqaamay baan kacay sir xamaamka ku soo qubayso dadna dharkii ku shanaxaa ka yimid isagoo qaawam ayuu soo noqday marka asxaabtu la fadhiyay uu yiri wareey wal maxaa ku dhacay kaas yiri maxaa dhacay yar buuqayno doona uu sheegay mas'uul waxba ma sito waxyaalo badan uu qaadka leeyahay misaasadii ciyaalkiina u maleeyaan watarka biyaha ay ku cabaayeen ana laga yaabaa inaan iloobo oo caaga aan darmus ku maleeyo ku shaqlan galay maanta kursiga farmaajo ku fadhiyo kale aad marka qaybta ku fadhidaa waxyaabaha uu leeyahay baalkaasi haddana waxa laga yaabaa xilliga waagu markuu bariyo oo kale inaad dadka ninka ugu litahay macquul ahaan maskaxdaadii oo daalan adigoo daalan siyaabo badan saameynta xun ee uu qaadka leeyahay waxa ka mid ah ilowshiyaha yani hilmaamka nin waxaan maqlay oo saaxiibanahay maalin laga sheekeynay inuu gorgorada islaanta cimaamad u maleeyo cimaamad gabsaarti oo magaalada la aaday marka la mar afar maray mootul jarta waxa loo sheegay inuu gorgorad wato waxaad arkaysaa nin murqaamay oo kala garan waayay matal waxa jooga guriga dumaashiyeesi gabdho dumaashiyeesi islaantu qabayo dumaashiyeesi kala garan waayay marka xataa qaadka aan xataa habeenka dawaab wax la jiro dawaabka ayada mar ma sadawad ay galaan mar yaanyar dad ay galas hadana ku yala xaraarada qaadka ku hayso way aan gadan karin marka dhacdooyinka muqaadaraad ku leeyahay maqaad ku leeyahay kamid tahay waxaad ka hor Nairobi tagi Nairobi oo jaadka oo ka soo baxo Nairobi jaadka waxa ka cuna nimanka garaawista ka cuna ماشي أنا قاعد نقول لعبنا أسقونه نيروبي عنكو أركي قريب ساعونه. دلنير الصوماليات أبيالك الصوماليات ولا له هنا نحكوان الله هاي قاد كينا إسكجوجيان قاد كنا عفمات كنا مو ناكسن دنتي مو ناكسن دنت دل كانوا مو ناكسنو. أنا ما كان خيال جري هل شيء ما كان جري
surwaalaa laga yaabaa inaan bil qabo waxyaalo badan haddana isbuucii waa iska baashaalaa isteelka bajaajilayaan lahay hadda bajaajile ma waagaa qaadka ha laga waantoobo hana laga tanaasulo waayo wuxuu u diran yahay awooddaada tamartaada iyo maalkaagaba marka hadda waxaan jeclaan lahay qaadka mustaqbal maaha mustaqbalka aytiinka Soomaaliyeed waxa dumiye waa qaadka in laga hortago qaadkana had jecel hadda marka jaadka markaan iska dhaafay islaanta kaala arag islaamaha magaalada degan Madiina xaafadda Madiinaan deganayo oo ugu sareysa siiba xaafadda la Macal Nuur islaantii daaba oo gaday guriga nolol fiican ilmihi waa arbaci anina waa arbaci waagi hore laakiin jaadka bisaan ku dhameyn jiray lacagta islaanta lacag ma siin jirin wax yaraan siin jiray haddana kaala arag wax badan ay qaadataa marka $3 $4 siisid inta kale jaada ku cunay marka laakiin lacag jaadka iska dhaaftay $20 tusaysid reerkaada maanta waa kaafinaysaa shayga soo baxay xiranay naagta ninkana shaygu soo baxay xiranay laakiin marka qaylis xiranay hudheeya xiranay ama carabiga istaag hudheeya xiranay $1 hadda noloshiisa ma sha Allah isbedel far badan ka helay heer inaan lacag meel ligo akoon furto horumar gaaro ilmahayga mustaqbalka waxbarashadooda aan ku dadaalo aan gaaray allah ka soo hadeeyo qofkii oo dhibkaas ay haysto dhibaato weyn haystay haddaan ku darsado waano waxaan ku waanin lahaa in qaadka la iska yareeyo in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay la tacaalaan maxaa la jiray yani qaadka inay xakameeyaan oo dhalinta faraha badan leh cusub ee hadda soo kacaysa oo bright future leh oo mustaqbalkii yani dalka ah ku hoobatay in maxay ahayto bal yani ilaa xad ay yani la tacaalaan haddii rabbi idmo. Assalamu alaikum. Welcome to Nils Furniture Design again. Garma Furan Kusuduwada. We have an amazing bedroom set for only £999. Yes, that's right. Lema Dubai bedroom set, GIF, for only £999. That's right, only for this week. So come into the store to Nils Furniture Design, 273 4th Street, Edmonton. Amazing and large storage compartment. Again, don't miss out this opportunity of this bedroom set for only £999. We welcome you to Nils Furniture Design. I welcome my Somali brothers and sisters to Nils Furniture Design. Assalamu alaikum. The best quality luxury Turkish furniture is here at Nils Furniture Design.